ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ee gobolada dhinaca galbeedka ee fadhigiisu yahay magaalada Seylac ee xarunta gobolka Seylac ayaa gacanta ku soo dhigay dooni si sharci darro uga kalluumaysanayay badda Somaliland gudaheeda taasi oo siday kalluun tiro badan oo waliba ay ku jiraan noocyo ay mamnuuc tahay in la ugaarsado taliyaha qaybta galbeedka ciidanka badda ee Somaliland Maxamed Yuusuf Otter ayaa waxaan weydiinaynaa in uu naga waramo goorta la qabtay tirada lagu qabtay iyo goobta laga soo qabtay dawaa aragtaan wax weeye doontu waa tan halkii watina waa kuwan waana ka kalluumaysanayeen biyaheena waxay leeynayeen nimankaasi libaaxi sawirkiisa waa aragteen waxa weeye libaaxu hadda ay u dhalaa meelahan badda dhinaceedu ku dhalaa marka waa waqtiyada sida gaarka loo ilaaliyo Jabuuti inta ay noo jirta qofka lagu arko mid libaaxa isagoo sita waa gudaha la dhigaa waan ka xunahay waanuna la dagaalami doonaa cidii aan dambe aan ku aragno dadkana waan uga digaynaa kuwana waanu haynaa imka cadaaladda waanu horgeyn doonaa daleer مثلا kuwa kale oo aad soo qabateen bariyaha lagu dambeysay oo sidoo kale sharci darro uga kalluumaysanayay xeebaha Somaliland waan soo qabanay kuwa halkan yaala waa kamid marka waanu qabanaa ciidankan jamhuuriyadda Somaliland ee ilaalinta xeebaha badda ayaa had iyo goor waxay heegan u yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen badda Somaliland iyo xuduudahooda isla markaasina dhowr jeer oo hore ayaa ay dhacday in maraakiib iyo doonyo sharci darro ku soo galay ay sidan oo kale u soo qabtaan waa Axmed Sawarsame telefishinka qaranka Somaliland Seylac